Asalaamu calaykum. Aad baan ugu faraxsanahay maanta reer Seattle inaad aqbashaan xafladan ama seminaarkan oo aan ugu magac daray first time homebuyer workshop. Wax badan ayaa la i weydiiyey arrimaha ku saabsan guri iibsashada Mareykanka, khaasatan magaalada aan ku noolnahay Seattle iyo nawaaxigeedaba. Su'aalo badan dartood iyo jawaabo badan oo aan bixinayay baan waxaan go'aansaday bal si jamaacadda ama bulshada ku nool Seattle aan ugu baraarujiyo ama aan ugu sharaxo siyaabaha loo gadanayo guryaha. Waan ogahay reer Seattle iyo xataa muslimiinta dhammaan halkaan naga daawan doonto in ay qabaan su'aalo badan. Waxaana jeclahay insha Allah in aan su'aalahaas maanta inta uga jawaabi doono. Waxaan isleeyahay 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo ayay qaadanaysaa hadalkayga. Inta u dambeysana waxay noqonaysaa su'aalo iyo jawaabo. Fadlan waxaan idin siiyey waraaqo iyo qalimaan. Haddii ay kugu soo dhacdo su'aashaas qoro, hadhowna i weydii si dhammaan dadka ay uga faa'iidaystaan. Waayo haddii mar kastoo aan istaago oo aan su'aal idinka qaado, waqtiga ayaa nagu dheeraanayo. Slideska aad insha Allah arki doontaan waxaan ku soo diyaariyey luqadda Ingiriiska, laakiinse badankii waxaan ku hadli doonaa luqadanada Soomaaliga. Haddaa isweydiinayso sababta aan ugu diyaariyey luqadan Ingiriiska, waxaa jiro erayo la dhihi karo marka la turjumo waxaa lumayo nuxurkooda ama turjubaanimooda ayaa lumayo. Saasoo ay tahay waan faahfaahin doonaa ereyadaas insha Allah. Taasi wuxuu ahaa hordhaca seminaarkanaga. Hadda aan u gudbo horta qofkan ama shakhsigan idin hortaagan waa kuma. Badankiin dadkiinaan reer Seattle lahaa aqoonta aad ii leedihiin waxaa weeyaane Cabdiweli, xisaabiyaha, the accountant, the CPA. Waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah inaynban aqoon inaan ahay also real estate agent. So ganacsiyasha aan ku jiro waa badan yahay. Xafiiskayga tusaale ahaan waa xayeysiin yariisa. Xafiiskayga haddii aad u baahato hawlaha kale oo aan qabto sida accountingka, cashuurta iyo la talinta, xafiiskayga hal blog buu u jiraa meesha maanta aan fadhinay insha Allah oo ah Takwila Village. Intaa kadib musqulaha halkaasay ku yaalaan insha Allah qofkii raba inuu isticmaalo suuliga. Haddana waan iska bilaabanaynaa insha Allah. Waa maxay seminaarkaneeto? Seminaarkan waxaan ugu magac daray first time home buyer workshop ama gadashada guriga seminaarka. Muhiimadda uu leeyahay seminaarkan waxaan rabaa inaad maanta inta kala tagto go'aan ah ma gadan karaa guri mise ma gadan karo, ama haddaanan gadan karin sidee baan isugu diyaariyaa gurigan. Tan labaad oo ah guryahan la xayeysiinayo ay xayeysiinayaan shirkadahan isku sheego inay yihiin Islamic financing, talow ma shariica mise ma ahan, maxayse uga duwan yihiin bangiyada kale ee caadiga ah. Saasoo ay tahay waan bilaabanaynaa insha Allah. Waan faahfaahiyey oo ah hadafka aan ka leenahay workshopkaneeto oo ah inaad fahanto sida loo gadanayo guriga, inaad fahanto xagga maalgelinta ama maalgashiga ama waxa loo yaqaano down paymentiga, inaad fahanto tallaabaha la qaadayo marka guri la gadanayo, iyo inaad fahanto erayada la isticmaalayo marka aad guri gadanayso. Maxaa ka mid ah erayadaas? Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano mortgage ama mortgage terms. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano interest. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano profit. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano amortization schedule. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano FICO score. Waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano debt to equity ratio. Waxaasoo dhan waxaan ku faahfaahin doonaa luqadanada Soomaaliga insha Allah. Waan ku sii soconaynaa meesha aan ka wadayno. Hadda
hadda waxaan u gudbaynaa ciwaanka ah are you ready to buy a home? diyaar ma u tahay inaad guri gadato? jawaabtu waxaan leeyahay waa ha, waayo halkaan maadan imaan lahayn haddaadan rabin inaad guri gadato. 3 mawduuc ayaan ka hadli doonaa halkan. mawduuca koowaad waxaa weeyaane mawduuca loo yaqaano financial readiness. xagga dhaqaalaha diyaar ma u tahay? incomekaada ma fiirisay? deyntaada ma fiirisay? kaydka kuu yaallo ama savingka kuu yaallo oo u isticmaalayso down paymentiga ma fiirisay? 2 shaksiyan adiga qofka raba inuu guri gato diyaar ma u yahay? nolol maalmeedkaada ma fiirisay? nolol maalmeedkaada ma degan yahay? stable ama waxa loo yaqaano stability ma tahay? shaqada aad haysato ama ganacsiga aad haysato waa ganacsi noocee ah? waa shaqo noocee ah? ma shaqo loo yaqaano miyaa kumeel gaar ama temporary ah, mise waa shaqo joogto ah ama permanent ah? ganacsigaadu waa ganacsi noocee ah? meeqa sano ayuu jiray? ma 2 sano jirbaa? ma 5 sano jirbaa? waxaasoo dhan waa muhiim marka aad rabto inaad isku diyaariso guri gadashada. 3 in aad u diyaar garowdo mortgageka. waxaa ka mid a mortgagekaaseeto lacagta bisha joogtada ee la bixinayo. waxaa taas dheer lacagta caymiska ama waxa loo yaqaano property insurance. waxaa kaloo ku xigo canshuurta ay qaadato degmada hoose ama countiga uu qaato ama waxaa loo yaqaanaa property tax, iyo qarashaadka kale ee qarsoon oo hadhow soo bixi karo. maxaa ka mid a qarashaadka qarsoon? waa qarashaadka guriga hadday wax ka jabaan ama wax ka hallaabaan lagu dayactirayo ama lagu suubinayo. waxaa laga yaabaa inay mar kaa baxdo $500 ama inay hal mar kaa baxdo $30,000. tusaale ahaan waxaa ka mid a saqafka roofka guriga saaran haddii uu daldalool yeesho ama uu dilaaco oo biyihii uu soo daayo, abadan waa inaad roofka bedeshaa. hadday tuubo weyn dilaacdo oo bulaacaddu ay dhibaato weyn gaarto, waxaas ayaa loo yaqaanaa hidden cost. waa in aad isku diyaariso qarashaadkaaseeto. hadda waxaan ka hadalnay isu diyaarinta guri gadashada. markii aad tiraahdo diyaar baan u ahay inaan guri gato, horta waxaa weeye inaad ogaato gadashada guriga maxaa ka horeeya. waxaa ka horeeyo baaritaan. bal aan wax yar idinla kaftamo. haddaan nahay Soomaali, Soomaalidu dadkoode qabiil weeyaane, ilaah baa qabiil naga dhigay. waayihii hore Soomaalida waxay dhihi jireen ninkan waa ree hebel, ninkan waa ree hebel, ninkan waa saan iyo saan, waa laangaab iyo laandheere. dadka markii aniga aan la kaftamayo waxaan ku dhahaa laandheeraha waa nin credit scorekiisa uu aad iyo aad u sareeyo. ninkaas ayaa ama gabadhaas ayaa laandheere ah. waayo bangiga ama ha ahaado muslimna ha ahaado ama ha ahaado kuwa aan muslimiinta ahayn, adiga kuma yaqaanaan. maadaama ay ku maalgelinayaan ama lacag deyna ay ku siinayaan, waa in ay ogaadaan qofkan horta aan waxaan deyminayno qof mas-uula ma yahay? deyntan weyn ma xamili karaa? jawaabtaas waxaa lagu ogaanayaa marka la baaro credit scorekaada. badankiin waad maqashiin waxa loo yaqaano FICO score. FICO scoreka wuxuu u dhexeeyaa 300 ilaa 350 buu u dhexeeyaa. aan ku soo cesho 300 ilaa 850 buu u dhexeeyaa. hadduu numberka aad u sareeyo, adiga ayay dan fiican kugu jirtaa. haddii numberkaas uuba ka hooseeyo 660, lagulama hadlayaba. waayo qof la yaqaano ama qof la aamini karo ma tihid. horta kow waanaad fahantaa waxaa loo yaqaano credit score. credit scorekaasayto tusaale ahaan waxaan isleeyahay hadda dhammaantiinba waad wada fiican tihiin oo waxaan leeyahay credit score fiican baa leedihiin. ama ka soo qaadno in aad leedihiin credit score 740. horta ogaada
marka la baarayo credit scoreka la baarayo 3 meel ayaa laga baaraa. 3 shirkadood waa taqaanaan badankiin, waa Equifax, TransUnion iyo mid kala jiro raalli hada waa soo xasuusnaa 3 ayaa la baaraa. bangiga ku maalgelinayo kan dhexe ayuu qaadanayaa, ma qaadanayo kan u hooseeyo, mana qaadanayo kan u sarreeyo, kan dhexuu qaadanaya. way ku fiican tahay adiga in nambarada ay isku dhow yihiin. tusaale ahaan haddii credit scorekaada ugu sarreeyo uu yahay 770, tusaale ahaan uu yahay, kan dhexe ku duceyso inuu noqdo 760, kan hooseeyana uu noqdo 750. waayo wixii ka sarreeyo 740 iyo kan haysto 850 waa isku mid. so way ku fiican tahay inay isku dhow yihiin 3 nambarba. maadaama la ogaaday credit scorekaada marka uu aad u sarreeyo, lacagta ay saaranayaan bangiyaasha, ama ha ahaato interestiga waxa loo yaqaano ribada, ama ha ahaado waxay u yaqaanaan kuwa muslimiinta faa'iida profitka, mid fiican oo adiga aad ku gorgortami karto ayaad helaysaa. wayna ku fiican tahay. hadhow ayaan intusi doonaa sida uu impact ugu yeelan karo marka la fiirinayo. waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago waxyaalaha aad kor ugu qaadi karto credit scorekaada haddii uusan joogin meeshii adiga aad ku qanacsanayd. taasna waxay ka mid tahay isu diyaarinta gurigadashada. tusaale ahaan credit scorekaada waa 690 ba iska dheh, 720 kasaga lagaa rabay, halkaas maada gaarin soo maha. so guri waa garan kartaa, laakiinse faa'iidada ay ku saaranayaan baa waxaa laga yaabaa inay yara sarreysaan laga yaabaa. so si bal aad 3 bil 4 bil 6 bil aad u sugto, kor baad u qaadi kartaa credit scorekaada adiga. say ku qaadi kartaa waa credit scorekaada biilashaada on time bixi mar kasto. dadka qaar baa jiro 5 beri ka daahayo, 1 beri ka daahayo, dhibaato weyn ayay kuu keeni kartaa. tan ugu fiican waxaa waaye adiga oo suubiyo waxa loo yaqaano AutoPay, ama biilkaada in shirkadda biilka kuu soo dirtay ay kala baxdo accountkaada waqtigii loogu talagalay. waxaad gelaysaa meesha shirkaddaas ay ku leedahay online-kooda, waa salaab garanaysaa, waxaad gelinaysaa car numberkaada ama account numberkaada, waxaad leedahay biilkayga la baxa markay 2 maalin ka hartay markii la iga rabay. adig maba isdhibaysidba, xaanshe baa luntay iyo xag ka dhacday iyo maba jiraba. waa laga yaabaa dadka qaaynahay war lacagta maba ii soo dhicin, laakiinse qasab maaha inaad suubiso. laakiinse markaad isku xirto labadaas bangigaada iyo ayaga, meesha waxaa ka baxayo biilal daahay. ogow markuu biilka daahana 2 ciqaab ama 2 dhibaato kuu keenaya. kow, waxaa lagu saaranayaa lacag dheeri ah, ha ahaato $5, ha ahaato $10, wax kastaba uu yahay. saasoo ay tahayna credit scorekaadii oo aad rabtay oo aad ka shaqaynaysay waqti dheer hoos ayuu u dhigayaa. 2, hoos u dhig deynta aad qaadanayso. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad wadato credit card. credit cardkaas waxaa laga yaabaa in lagu ogol yahay $10,000 limitkaada lagu ogol yahay. micnaheedu ma ahan 10,000 hal mar wada isticmaal horena ka bixi ma ahan, si ay ribo kugu fuulin. taasi wax weyn kuma tarayso. waxaaba laga yaabaa xataa marka qaarkood inuu hoos kuu dhigo ayaa laga yaabaa. sida ka fiican, tusaale ahaan dadka waxaan khibradda u leh badankood waxay isku raaceen, waxay dhahaan 100kiiba ama 3 meelood 1 meel ka isticmaal creditkaada, oo 3 meelood 2 meelna ha isticmaalin. tusaale ahaan annaga oo raacayno tusaalihii ahaa $10,000 oo kaara ayaa jeebka kuugu jiro ama boorsada kuugu jiro. 10kaas kun ha ka isticmaalin wax ka badan $3,000 ha ka isticmaalin. $3,000 waxaa laga yaabaa inaad ku bixiso gaariga caymiskiisa, waxaa laga yaabaa gaariga shidaalkiisii, waxaa laga yaabaa cuntada ilmaha aad ugu soo iibaysay ama shoppingka ama adeegii groceryga laga yaabaa in aad ku isticmaasho. kaashki waa kuu yaalla, kaashka ha taabanin. markaad 2,700 camal isticmaasho oo arkaysaa online-ka moogta, kaarka ka joog, ha sii wadin.
markii bisha ay xirmato degeysaya markii bisha ay xirmato tusaale ahaan maanta meeshaan baan joognaa taariikhdu waa bishii 6aad 14teedii wey soo ma okay waxaa laga yaabaa statementigaada inuu xirmo bil kasto 27 iska dheh buu xirmaa waa 2 week oo kale buu xirmaya markuu xirmo 28 waxaa lagu soo dirayaa statementiga lagu soo dirayaa waxaa lagu leeyahay Cabdiwali waxaad isticmaashay 2,000 $7 isticmaashay ayaa lagu leeyahay soo maaha ha waxaana ku arkaysaa hoos waxa loo yaqaano available credit halkaas waxa ku qormayso inay available ku tahay $700 waayo limitkaadi ayaa wuxuu ahaa $10,000 macluumaadkaas ayaa waxaa loo gudbinayaa saddexdii shirkadood haddaan soo xastaa iloobay waa Experian Equifax iyo TransUnion baa loo dirayaa waxaad leeyahay Cabdiwali Maxamed halahan buu isticmaalay markii uu statementkii dhamaaday 27kii oo la diray adiga maadaama aad tahay qof muslina oo aad rabin inaadan ribo isticmaalin biilka waxaad bixin kartaa 28 29 30 kowda adiga biilkaas bixi inta aysan due date-ka uusan gaarin hana bixinin lacagta ugu yar waayo haddaa bixiso lacagta ugu yar ribadii ayaa soo gelayso saana ula socdo halkaas waxaan ka hadlaynay fahmidda waxa loo yaqaano credit score-ka xasuusno waa yaa tahay weeyaane laandheeruhu waa gabar ama wiil leh waxa ka sareeyo 740 wixii ka hooseeyo ma dhaheeno waa laangaab ma dhaheeno laangaabka waxaa weeyaane midka aan waxba la siin karin laakiinse mar kasto isku day in aad ka shaqayso kartugaada waxaan rabaa qisooyin inaan isticmaalo waxaa laga yaabaa qof ehelkaada ah qof walaalkaa ah baa waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho in noqo cosigner waa dad waxaan nahay runtii aad isku caawiyaan nahay waxaa laga yaabaa walaalkaa walaashaa xataa ilmahaada baa laga yaabaa oo hadda ka qalan jibinayo high school baa laga yaabaa inaad gaari brand new usoo qaado oo ama u noqoto cosigner taasi runtii dhaawac weyn ayay u keeni kartaa kaskorkaada aniga kuma dhahay ha suubinin laakiinse haddiiba aad ku fikirayso inaad guri gadato qofna ha u noqonin cosigner ama gaari ha ahaado ama furniture ha ahaado more warehouse ha ahaado waxaa kaaga fiican adiga inaad qofkaas ku taakulayso lacagtii down paymentigii laga dhigi lahaa so qof ha u noqonin cosigner u noqo qofka cosigner markaad guri gadato waxaa ku tiraahdaa walaalow walaalkay aan jeclahaa tahay ee walaashay qorshaan wataa inaan guriga taa rabaa maanta kuma noqon karo cosigner waayo dhibaato kuu keenayaa weyn waa isfahnay soo maa waa yahay hadalkayga waa si badan oo yaha oo jeedaa hadda waxaan u gudbaynaa waxa loo yaqaano the home buying process ama gadashada guriga horta inta aadan guriba raadsan so inaa isweydiisa maahan maxaan u qalmaa aniga soma maxaan u qalmaa lacag imisaan u qalmaa waan ka soo hadalnay waxyaalaha taasi lagu saleeyo waxaa ka mid a credit scorekaada iyo waxaa ka mid a incomekaada iyo waxaa ka mid a deyntaada baa ka mid a waxaa nala joogo maanta cabdiisa tufa oo ka socdo guidance residential markuu dhammaado presentationkan insha allah halkaas ayuu fariisan doonaa wixii su-aalaha ku saabsan bangigaasna waad asaga weydiin kartaan laakiinse aniga wixii aan u leeyahay insha allah khibrad baan idinla wadaagaya maadaama maanta uu yahay overview processka waayo qof kasto wuu ka duwanaan karaa muxuuha siyaabihiisa ma rabo in waqtiga qaato waxyaalaha ugu horeeya oo aad suubinayso waxaa loo yaqaano weeyaane pre-approval process aniga waxyaalaha runtii dadka aan la shaqeeyo aan ugu faa'iideeyey waxaa ka mid a maadaama xisaabiye aan ahay oo accountinga taxiga buuxiyo qofka aniga ila macaamilayo anaa haayo wixiisii haayo anaa haayo income taxtaankiisii haayo anaa w2kiisii haayo markuu dhaho Cabdiwaliyow guri baan gadanayaa waxaan dhahaa miyaa rabtaa in aniga la shaqayso mise qof kale ajir la shaqayso so wuxuu dhihi Cabdiwali
adaa waxa iga hayo adana kuu kalsoonahay waxaan dhahaa fasax ma isiinaysaa in aan u diro macluumaadkaada tagsutaanka W2 iyo wax kasto shirkadda adiga aad doorato ama ha ahaado guidance waa ka hadli doonaa insha Allah ama ha ahaado Devan Bank ama ha ahaado university markuu hadho waxaas oo dhan ayaan u diraa shirkadda uu asaga la macaamilayo kabacdi isbuuc kabacdi laba isbuuc kabacdi oo lagu baaraya oo lagu maqan yahay credit score la baaraya waxa helaysaa waraaq loo yaqaano pre-approval letter baa helaysaa pre-approval letterka wuu ka duwan yahay loo yaqaano pre-qualification pre-qualification waxaa waaye ha hebelow waa aniga guri baa inaan gato haye lacag meeqa ku soo gasho halaha baa soo gasho credit score-kaada maxaa u moodaa halahan baa u maleeyaa meeshu wax gelinaya wuxuu ku leeyahay waxaad ii sheegtay waxaa laga yaabaa inaad u qalanto guri gaarayo 900,000 laakiin fiiriya deyntii muusan fiirin qof ma u tahay cosigner muu fiirin waa ciladaha hadhow kugu soo bixi doono so waxaa dan kugu jirta adiga in aad dul qaadato 2 week aad sugto kaliya oo applicationka lagaa wada buuxiyo si wax kasta loo ogaado markaad hesho waraaqda sayto ani adiga waa kulmeynaa oo wada fariisanaynaa waxaan bilaabaynaa waxa loo yaqaano raadinta guriga aan rabto walow hadda dadkii adinkaaba naga horeeyo Redfin iyo Zillow iyo Realtor isticmaalayo adinkaaba guryihii noo soo diraayo dhahayo gurigaana ka helay totus aniga waan ka duwanahay dulaalyaasha kale aniga qofku waan la fariistaa waxaan dhahaa guri noocee ayaa rabtaa soo dhahaa guri saasara markuu isha waxaan dhahaa waayahay xaafad ama location kee rabtaa inaad degan tahay hadda maanta waxaan ku sugannahay degmada Takwila ku sugannahay Takwila waxay ka mid tahay metro Seattle bay ka mid tahay ilaa Tacoma oo metro Seattle bay ka mid tahay marka la fiiriyo ilaa xataa Everett Washington oo aan dhihi karo waxay noo jirtaa 40 maayo waxay ka mid tahay Seattle metro ka mid tahay so 40 20 iyo 20 kale 80 maayo baa Seattle metro ah oo ka soo bilaabaysa Everett ilaa Tacoma aad gaarayso laakiin se annaga maadaama aan Soomaalinahay waxaan u badannahay badankanaga King County u badannahay laga soo bilaabo shoreline lagu ekeysiyay Federal Way halkaasna waxaa naga xigo Abram baa ugu shisheeso waxaa u dhaxeeyo degmooyinka kale sidii Kent Renton Takwila Seatac Des Moines Berrien White Center waan tiri karaa Skyway mafahmino horta adiga xagga ka rabtaa dadka qaar baa waxba muhiim u ah waxaa laga yaabaa qoys inuu muhiim u yahay school fiican bay ilmadu dhitaan ma rabaan inay ka guuraan schoolkooda badankiin raalli ahaada waxaad u badan tihiin haween baa u badan tihiin waxaa laga yaabaa inaad ku jirtaan ganacsiga daycare-ka baa u badan tihiin baa laga yaabaa raalli ahaada diin daycare ayna haysan waxaas laga yaabaa aniga meeshaan baan ku leeyahay ganacsi maadaama mortgage-ka uu bixinayo ganacsiga halkaa inaan ka guuro ma rabo waxaa laga yaabaa dad adinka ka mid ah inay idinla nool yihiin waalidkiin oo duqoobe baa laga yaabaa inaad haysaan sidii caregiver ma fahmino so waxaa laga yaabaa tirada waxaa muhiim ii ah guri 5 qol ah tusaale ahaan laakiin inuu jiro qol hoose oo masquul wato ama masquusha ay ku taalo meel aan fogeen si aabahay ama hooyaday oo waayeela aysan u sii fuulin jaraanjarada kor iyo hoosba baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inaad tahay qoys aad u ballaaran oo ilmo badan jiraan ama isla nooshihiin waxaa rabtay inaad kala nafistaan baa laga yaabaa so waxaa laga yaabaa leedahay waxaan rabaa guri hoos basement ku leh fadhi ku leh 2 masquul ku leh 2 qol ku leh masquul ku leh fadhi leh si ilmaha waaweyn ay hoos ugu nafistaan kuwa yarna kor u joogaan markii aan isla garanno waxa adiga aan rabto baan waxaan raadinaynaa gurigii aan ku raadin lahayn gurigii baan soo helaynaa markii guriga aan helno waxaan qoranaynaa codsi ama arji ama waxa loo yaqaano offerkaaseeto wuxuu ka hadlayaa ama ka turjumayaa waxa adiga aad rabto in aad ku gadato gurigaas tusaale ahaan guriga 900,000 dollar weeyaane waan baaraynaa anaa kuu baarayo gurigan miyuu u qalmaa 900,000 waaye suma su'aasha haddii ay tahay haa de waxaan ku leeyahay walaalle uu qalmaa 900,000 waxaan fiirinaynaa suuqa siduu yahay suuqa ma kacsan yahay suuqa ma dhexaad baa suuqa ma hooseeya suuqa yuu la socdaa suuqa yuu u hiilinayaa ma wuxuu u hiilinayaa suuqa qofka gadanaya guriga mise wuxuu u hiilinayaa qofka guriga iibinaya u hiilinaya
maantadana aan joogno waxaada dhihi karaa suuqa wuxuu u helinayaa qofka guriga gadanayo sababtoo ah interestiga ama waxa loo yaqaana ribada ama waxa loo yaqaana faa'iidada uu saaranayo bangiga ba aad u sarreeyo dad badan baa waxaa laga yaabaa in aysan awoodin in ay iska bixiyaan monthly paymentiga so adiga danaa kugu jirto waa la gorgorgormtaa qofka guriga iska leh waxaa $700 ma ku siinayo halahan baa ku siinaya dadka aniga waxaan badankood kula taliyaa meesha aad ka raadinayso in guriga lagugu suubiyo qiimo dhimis 20 kuna 30 kuna waxaa kaaga fiican hadalkayga dhegeysaya waxaa kaaga fiican in aan lagugu suubin qiimo dhimise adiga 20 kun ama 30 kun oo lagu dhimi lahaa qiimaha in adiga meel lagu dhigo oo aad u isticmaasho waxa loo yaqaano closing cost hadhowdii ogow down paymentkii lagama rabo hadduu guri 700 kun oo yahay ku dhufo 20% ha waa dhigi kartaa wax ka yar laakiin tan adiga kugu jirto inaad dhigto wax u dhigmo 20 waxaa lagaa rabaa 180,000 baa lagaa rabaa inaad dhigto down payment salahan taa waxaa sii dheer waxa loo yaqaano closing cost waxaa ka mid ah caymiskii oo aad sii horumarinayso waxaa ka mid ah canshuurtii oo aad sii horumarinayso waxaa ka mid ah sharciga qarashka ku baxaya kala wareejinta subarlooga ka mid ah waxaas dhan qarash waaye adaa lagaa rabaa kambaniga ku adeegayo adaa lagaa rabaa waxaasayto waxaa kaa daberi karo lacagta qofka iibinayo guriga oo adeeg ku siiya soo aday dan kuugu jirtaa in aan guriga hoos loo dhigine taa lagu siiyo runtii guri 900 kun aad ku gadatay iyo guri aad ku gadatay 770 qiimaha aad bisha bixinayso wax weyn uma dhaxeeyo waxaa laga yaabaa $200 u dhaxeeya laga yaabaa ha 20 ku dhufo 30 sano lacag badan waay fahmino laakiin allahu aclam inaad meeshaan degaanayso 30 sano waa aniga dad saa u talaya wayaan markii aad taa dirto oo labadiina aad ku heshiisaan xaq waxaa u leedahay guriga inaad baarto ama waxa loo yaqaano inspection weligaa iyo allaha inspection ha ka boodin guryaha cusub oo hadda xataa la dhisan maartay inspection baan marinaa cilado farsama laga helaa wax weyn ma aha badankood maadaama cusub yahay waxaa laga yaabaa tusaale ahaan meesha lagu dhaqo weelasha tubada lagu xiri lahaa inuusan goomihii gelin baa laga yaabaa markii biyaha waxaa dataan waa lagu baaraya laakiin guryihii dee la soo degay waxaan guri waxaa la soo degay waaye waxbaa ka jiro waxyaalaha dadka aniga aan ku dhaho weliga allaha ha ka samrin waxaa waaye saqafka roofka meeshay biyaha maraan iyo korontada way inta kale waa runtii wax laga heshiin karo weeyaan inspectionka xataa waxaa laga yaabaa inuu soo saaro kululeysada furnaska inuu duqoobaa laga yaabaa sababtu wuu duqoobay macnaheeda maaha waa xun yahay waqtigiisii aa dhammaaday ka waran haddaa maanta adiga aad wadato gaari 20 jiro aad wadato way fiican soo ma shaqeynaya sababtoo ah waa daryeelaysa gaariga waxaa ka bedelaysa saliida ka bedelaysa taayirada ka bedelaysa brake ka bedelayso waxaa laga yaabaa inuu saaran yahay gaarigaas aad wadato saaran tahay 200 kama baa laga yaabaa inuu saaran yahay waxaa laga yaabaa inuu ka fiican yahay gaari hadda cusub maanta laakiin se adiga ayaa rabaa qisada idin sheegaya nagu dhacday bishii February aan bisha 2 sanadkan yar dhalinyaro baan guri iibinayay waan ku heshiinay qiimii baan ku heshiinay markii guriga la baaray baa waxaa soo baxday kuleysada furnaska in uu jiro adiga ku dhawaad 17 sano buu jiraa waxaana loogu talagalay marka la fiiriyo 16 sano loogu talagalay soo 2 sano ayuu dhaafay kuleysadii soo ma yarka wixii inspectionka wuxuu nagu yiraahday oo kuleysadanayto nolol uma harin laakiin wuu shaqeynaya wuu daarmoya gurigu kuleynaya inspectionka wuxuu nagu yiraahday waxaa dan in kugu jirto in la idinka bedelo waayo beri ayuu jabi karaa wiilkii wuxuu yiraahday Cabdiwali waxaa ku tiraahdaa qofka guriga iska leh ha iga bedelo furnaskaanayto xataa lacag marraba inuu isiiyo ha iga bedelo furnaskaanayto waayahay aniga adaan kuu shaqeeyaa soo ma ninka uma shaqeeyo waxaan ku laabtay agency kale waxaan ku iraaday qofka guriga iska rabo furnaska wuu ka warsan in laga bedelo rabaa wuu baxay qofkiiba u sheegay guriga iska lahaa qofkaas qof runtii aqli badan buu ahaa wuu salat wuxuu yiraahday walaalayaalow furnaskan wuu shaqeynayaa ciladna ma hayo waan ogahay muxuu ahaa wuu duqoobay
laba waxaa idiin suubinaya. Kow, waxaan u yeerayaa shirkadaha dayactiro ama ku suubiya servicekaa suubinaya si loo nadiifiyo oo loogu suubiyo tuna. Labo, furnaska iyo filinjeerka iyo qasaaladaha wax dhaqo sida dishwasherka iyo ka dharkaba warranty baa idin gelinaya. Lacalla markaa gadataan hadduu mid ka mida uu idinka jabo, warrantygaas baa ama idin hagaajin ama idinka bedeli. waa nagu soo laabteen, wiilkaa u sheegay talan sii, waxaan idhi walaalle waxaad ka walaysay furnaska, warrantiyaa lagu siiyaa idhi oo lagugu daray filinjeerkii, lagugu daray dishwasherkii, lagugu daray qasaaladaha. hadduu kaa jabo waxaa wacaysaa kambanigana wacaysaa warrantiga ay kaa bedelayo. warrantigaasna wax ka yar $400 buu ahaa, bal ka waran. so ninkaasna wuxuu safe garaystay lacag gaarayso ugu yaraan $7,000 buu safe garaystay. so waxyaalahaas oo kale ayaa jiro. hadda weli waxaan ku wada jirnaa home buying processka. mid kale ayaan insha allah u gudbayna. yahay erayadii aan idiin sheegayay oo aan idin dhahayay waa in lagu fasiraa luuqadanada. waxaa ka mid a mortgage basics. horta waa maxay mortgage? mortgageka sayto anigu waxaan dhihi karaa waa nin weli yar baan ahay, luuqadana soomaaliga aadan usii baranoyaa. oo mortgageka haddii aan fasiro ama aan faahfaahiyo, waa deyn ku saabsan hantida maguuraanka ah. hantida maguuraanka deyn ma ahan cabdiweliga oo intaa u timaatay cabdiweliga $100 ideyni, taasi waa deyn wey. laakiinse mortgageka waa deyn ka duwan deyntaas, laakiinse deyn ku xiran hantida maguuraanka sida guriga weeyaane. aad ku gadato guri aadna u bixinayso bil kasto. deymahaas waa kala duwan yihiin. waxaa jiro laba deymo baa badankood ku salaysan guri gadashada. midna waxaa loo yaqaano weeyaane fixed rate ama waxaa loo yaqaano adjustable rate mortgage. waa maxay fixed rate? fixed waxaa weeyaane interest, ribo, faa'iido saarat ad ku fasiro oo cayiman weeye, oo lagu heshiiye weeye, oo aan isbedelayn waayo. tan kale oo ah adjustable rate mortgage, marka lasoo gaaba la dhaho arm la yidhaha. arm ma ahan garab laagsan, arm baa la dhaha, arm baa la dhahaa. adjustable isbedel, ribo, faa'iido, waxaad ku fasiro isbedelayo. tusaale ahaan waxaa u dhahayaa gurigan waa qaadatay 2 sano waxaan kugu siinaynaa rate hoosaan kugu siinaynaa, laakiinse sanad ka bacdi wuu kacaya. badankood kaasi waxaa qaato dad rabo inay gurigan degnaadaan 2 sano 3 sano baa laga yaabaa. laakiinse dhibaatada waxay imaanaysaa haddaad dheeraysato ratekii maanta ku qaadatay inuu 2 jibaarnaa laga yaabaa. so taana la soco. tan saddexaad waxaa weeyaane down payment, lacagta la dhigaayo. haddaba markii aan bilaabayay waa ani idinku idhaahday lacagta ugu yar oo aad dhigi karto 100% waa 3, laakiinse waxaa dan kugu jirta adiga 20%. sababtoo ah lacagta aad bixinayso bishii baa yaraanayso. haddii aad dhigto lacag yarna hasa kugu badanayso. ayaamahan waxyaalaha ugu badan la weydiye waxaa waye cabdiweliyow haddaanan haysan lacag igu filan oo down paymentiga ah yaa iga caawin karo? waa jiraa, laakiinse aniga kuma talinay inaan qaadato. sababaan kuu sheegaya. kuwan muslimiinta ah guidance, davan, university kuma jiraan, kumana lug lahan waxaaneeto. down paymentiga wuxuu ka imaadaa dowladda, ama ha ahaato dowladda hoose sida degmooyinka Seattle, ama ha ahaato gobolka ha ahaato. annagu Soomaali baan nahay, 3 magaalo oo weyn baan degnaa. magaalada Seattle, magaalada Minneapolis, magaalada Columbus Ohio. degmo kasto sharci gooni ayay leedahay. waxa ka socda Minneapolis, waxa ka socda Columbus halkan kuma salaysno. saasoo ay tahay annagana waan qabnaa, laakiinse down paymentiga sayto la caawinayo waxaa annaga bixiso degmadana hoose Office of Housing baa bixiyo. waxaa kaloo bixiyo gobolka Washington Housing Finance Commissioner bixiyo. laakiinse waa in aad aadaa
deyn bixiye ayaga ay la macaamilaan. waxaa ka mid a bangiga Chase, bangiga Bank of America, bangiga Wells Fargo iyo credit unionyaasha sida Bowen Employee Credit Union iyo kuwa kala ka mid ah. haddaad kuwaas aadaynin down payment laguma siinayo. aan ku soo cesho, haddaadan kuwaas aadaynin down payment laguma siinayo. sababta aan ku dhahay aniga kaas ha aadin waxaa waaye ribadii ayaa soo galayso. taasna halkaas way dheer tahay runtii sharaxaadda. waxaana jeclaan lahaa in hadhow markuu dhawaado ciwaankaneeto aan hal kaas in kugu sharaxo insha allah. uga gudbaynaa haddana waxaan u gudbaynaa mawduucanaga kale. wixii maanta u timaadeen oo ahaa cabdiweliyow waxaan la sheegayo oo la dhahay Islamic financingkan waay talow maxaa waay ma ribaa iibinaysiin mise waxaad iibinaysiin shariica ah. horta anigu sheekh ma ihi maantana idima fadwoonayo. dadka waxaan ku baraarujiyaa waxaan dhahaa wax aqriso wax baar la tasho culimadaada hana ku ekaan hal sheekh dhowr sheekh raadi hana suubin wax loo yaqaano fadwa shopping. ma garateen halkan waxaan ka hadlaya wax loo yaqaano Islamic Finance Overview. ogow waa ka soo hadalnay isdiyaarinta gurinka budgetka creditka pre-approvalka waa ka soo hadalnay. hadda waxaan ka hadlaynaa waxaan masaxra mise qalad waay. fadlan ma rabo maanta halkan in ay ka dalato dood ah waxaan waa ribo iyo ribo ma ahan. taasi si kale aan insha Allah uga doodno. waa yahay haddaan dib u laabto what Islamic home financing waa maxay waxa loo yaqaano Islamic home financing. markii la fasiro waa heshiis raacsan shariicada diidayana waxa loo yaqaano ribo. sidee buu uga duwan yahay kan ay bixiyaan bangiyada caadiga iyo kan? wuxuu uga duwan yahay bangiga lacag ayuu ku deyminayaa. raalli ahada bangiga lacag buu ku deyminayaa. kan islaamiga lacag kuma deyminaye wixii adinka ayaa shirkoobayo ama ha ahaato muraabaxa ama ha ahaato mushaaraka. kambanigan maanta nala joogo oo guidance ah waxay bixiyaan waxa loo yaqaano mushaaraka oo ah ora adiga guriga soo hel hadhowna waa soo wada kaashanayna. kambaniga la dhaho Devan wuxuu bixiyaa waxa loo yaqaano muraabaxa. adaa guri raadinayo ma guriga hesho u sheegaysaa asaga guri gadanayo asaga hadhow faa'iido saaranayo. wixii kale oo aan ka jeedi karno waa gooni weeyaane. waxaa kaloo jiro waxa loo yaqaano ijaara lease to own. aniga runtii taas dadka kulama taliye. macnaheeda waxaa waaye hadda guri waxaan kusoo galayaa kiro hadhow ayaan gadanayaa. dhibaatooyin badanaa ka imaan karo. taana runtii ma raba inaan aad u sharaxo. haddana waxaan u gudbaynaa ciwaankanaga kale. yaa weeye ama waa kuwa bixiyo waxa loo yaqaano Islamic financing. waana idin sharaxay. waxaa ka mid ah shirkadda Guidance Residential oo bixiso waxa loo yaqaano muxuuha murabaxa. waxaa ka mid ah Guidance waxay bixisaa mushaaraka bixisaa raalli ahada. waxaa ka mid ah kambaniga la dhaho Universal Islamic Financing. asaga wuxuu bixiyaa murabax wuxuu bixiyaa sida Devan Bank oo kale waaye. iyo waxaa jiro kambani afraad baa jiro Ramin Housing California ku yaala. waa runtii kambaniga la dhihi karo 100% waa shariica. nasiib daro waxay ay maalgeliyaan ama guryo u iibiyaan kaliya dadka degan muxuuha California. danbaa kuugu jirta adiga inaad isku dheelitirto saddexdan kambaniyood. ogowna marka lagu baarayo iskoorkaada ayaa la baaraya insha Allah. wax yar baa noo haray fadlan su'aalihiina ii haya ana insha Allah ka jawaabi doonee. waxaa jirto fadwo ay bixiyeen culimo isu timid waa hore. culimadaas kuma jirin culimadanada Soomaaliyeed walow hadda ay soo baarugayaan culimadanada. fadwadaas waxaa bixiyey dallad ay ku midoobeen culimadan oo la dhaho American Muslim Jurisprudence Association AMJA baa la dhahaa. waxay heleen heshiisyada Guidance, Devan, University, Amin iyo Ijaara heleen. waxay u kala qaybiyeen 3 qayb u kala qaybiyeen. kuwa waxayba dhaheenba waa ribo oo hala macaamilna way isqarinayaan maahane. kuwaas waa laadeen xaggay u tuureen. waxaa ku xigay kuwa ay dhaheen
ribo ma ahan waxay iibinayaan, laakiinse xagga shariicada baa waxaa ku jiro mugdi ama qalad ama duleel saartaba adiga aada u sheegtid. iyo mid ay dhaheen waaba 100% astagfirullah maysan ima kasato labay kala qaybiyeen kii ribadaha iyo ka ribada ahayn. kuwii ribada ahaa oo qaladka lahaa waa lagu soo celiyey, waxaa la yidhi qaladaadkiina wax ka saxaa la yidhi. hal company oo Amin Housing baa ka saxay, waa ka idin sheegay California. labadii kale dood bay ka keeneen. doodaasna runtii waxaa ka mid ah isla qaybsashada canshuurta caymiska hagaajinta guriga ka mid ah. waa la dooday kolleyba waa ku adkaysteen guidance inaysan waxba ka bedelin ayaga. waa dhownahay waxyaala noo haray. waxaan maraynaa meeshii, waxaan maraynaa insha allah ugu dambeysaan maraynaa. haddaabay waxaan ka hadlay waxa loo yaqaano down payment aan ka hadlay oo ujeedin xagga xidig yaraan saaray. programyada waa jiraan, laakiinse shirkadahan guidance Davan University kuma jiraan. sababtoo ah waa inaad aadaa kambaniyaasha caadiga ee bangiga Chase, Bank of America, Wells Fargo, BECU iyo kuwa lamidka ahba. ugu dambeyn sideebaad ula shaqayn kartaa dadka anigoo kale ah oo loo yaqaano real estate professionals. waxaan arkaa badankood dadka adinkoo kale ah oo hadda bilaabayo in ay isaga qaldamaan qofka anigoo kale ah oo real estate brokerka ah iyo qofka bangiga fadhiyo sida Cabdiise camal oo kale oo loo yaqaano mortgage broker. haddaabana waxaan ka hadalnay waxa loo yaqaano home inspector. dan baa kuugu jirto adiga inaad doorato team fiican, tiimkaasayto oo ka shaqaynaya danaha ka shaqaynaya. haddii hal qof uu 2 koofi qabo, waxaa laga yaabaa qofkaas in uu asaga laga yaabo inuu asaga isu shaqaynayo. so dan baa kuugu jirto in qofka anigoo kale uu hal qof yahay, qofka bangi yahay uu qof kale yahay, uusan laba jirin. waayo dad waxaa jiro broker ah, mortgage broker ah, laakiinse gurigana iibiyo. so asaga danaa ugu jirto, sababtoo ah mortgage lacag kaa subinaya, tan lacag kaa subin. laakiinse haddii la kala sooco, anagoo kale camal waxaan ka shaqaynaya sidaan kuugu heli lahaa guriga. so dan baa kuugu jirta inaad ka shaqayso qofka adiga aad rabto insha allah. yaana kasii fiican inaad la shaqayso qof anoo kale ah oo broker ah, CBN ah, nambaradiina kuu sheegi karo. waayo kuwa kale waxaa laga yaabaa inaysan aqoon baa laga yaabaa accounting. waa isxayeysiinaya. qaladaadka dadka ay suubiyaan badankood waxaa ka mid ah adigoo aanan soo helin pre approval, adoo inspectionkii ka boodo, adoo aan u diyaar garoobin qarashaadkii qarsoonaa, iyo adiga oo aan fahmin deynta aad qaadanayso. waxaan u malaynaya haddaabay inta aynan bilaaban seminaarka u bilaaban, gabar baa ii sheegaysay in lacag ay dhigtay oo ay u dhigtay carbuun deposit oo gaarayso 20,000 ay runtii ay ka luntay. taasna nasiib darro weeye haddii la fahmi lahaa waxa aad saxiixayso. haddana waxaan gaarnay waqtigii su-aalaha iyo jawaabtaan gaarnay. so hal baan, maadaama aad iga fog tihiin, hal baan ku imaanayaa, su-aalihii baan ka qaadaya insha allah. walaasha waxay i weydiisay su-aal ah, cabdiweliyow waxaad tiraahday lacagta ugu yar oo aan dhigi karo 3% waaye, haddaan haysto in ka badan ka waran. waa dhigi kartaa walaal, waana sharaxay. adaan su-aal ku weydiina waana kuu jawaaba. tusaale ahaan lacagta adiga aad dhigatay, down paymentga aad dhigatay, ma lacag aa ugu talagashay keliya miya guriga, mise waa lacag adiga kayd ku ahayd oo wax kasta ay ku jiraan? tusaale ahaan haddii maanta shaqada ay kaa dhammaato ama lagaa eriyo ama ganacsiga kaa burburo, lacag aad ku silmaan karta miya? haddii ay jawaabtu tahay haa, adigana aad iska bixin karto lacagta yara badan ee bil kasta bixinayso, de waxaan ku dhihi lahaa ha dhigin 20%, maybe waxaa laga yaabaa dhig 10%, 5%, inta kalena hayso. waayo mararka qaarkood ogow, qof kasto isku mid ma ahan. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood markaad dhigto 5% ama 20%, lacagta u dhaxayso waxaa laga yaabaa 300 ilaa 500 tahay. so haddii ay ku baaqan karto
toddobaatan ku baaqan karto laakiinse adiga aad bixin karto $500 dheeri bishii dan ha dhigin 20% baan leeyahay walaashay waxay i weydiisay su-aasha ah cabdiweliyow waxaad ka hadashay down paymentigi baa ka hadashay dadka laga caawinayo waxaana ku soo celisay yaa la qaadanin fadlan adoo raalle ba tiri ku soo celi waxbay waa fahmi waaye walaal waa anigii xididta saaray down paymentiga ama waxa loo yaqaano grantiga wuu jiraa horta ogaada maraykan wax free ma jiro lacagtaas lagu siinayo down paymentiga waa lacag deyn laakiin riba aanan raacsanayn ma guriga iibiso baa soo celinaysa laakiin riba ma lahan laakiin dowladda waxay ku qasbaysaa inaad la macaamisho bangiyada caadiga ah weliba xataa waxaa lagaa rabaa adiga inaad aado workshopyo aado waxaa loo yaqaano first time home buyer aado oo aad soo qaadato shahaado oo aad la shaqayso qof counselor ah xataa waxaa jirto income limit buu leeyahay so qofka hadduu income fiican soo galo waxaa laga yaaba inaad u qalmin xataa marar waxaa jirta lagu dhahayo waxaad ka gadan kartaa keliya degmo hebel so waxaa laga yaabaa in adiga lagu ereyga in lagu limit gareeyo lagu dhaho halkan keliya ayaad gadan kartaa hobina waa aan ka jawaabay walaal wuxuu i weydiiyey arrintii inspectionka i weydiisay oo waxaa tiraahday marar waxaa jirto inspectionka oo dadka ay dhahaan ha laga boodo saad u hesho maxaa guriga fiicnaa horta waxay ku xiran tahay qofka guriga iska leh hadda waxay bilaabeen dadka guriga iska leh ayaga inspection marinayo markay mariyaan reportkay diyaarinayaan way ku siinayaan laakiinse ogow inspector kaaseeto wuxuu u shaqeynayaa qof guriga iska leh adiga muusan kuu shaqeynayn haddii dee guriga tusaale ahaan uu guri 10 sano jira yahay ama 10 sano jira yahay inspection mariyeen inspectionka aan aqrino laga yaabo inaan ku qanacin inspectionka laakiinse gurigaan yahay guri la isku dilaayo oo qof kasta uu rabo adigna aad dahayso cabdiweliyow gurigan waaba gurigii aan weligay raadinayay yuusan idaafin aad tiraahdo weli waxaan ku dhihi bal waa yahay inta aan arjiga qoran aan suubsan waxa loo yaqaano pre inspection waxaa waaye anigoo aan ku siinin heshiiska kula gelin aan marsan inspection waa lagu ogolaana laakiinse waa in aan orodnaa dhaqsanaa aan soo raadsanaa qof inspector so insha allah meesha waxay noo karaysneed ilaa 5 p.m. waqtigina waaba soo yaryahay so insha allah sidii aan u nadiifino halkaas ayaan ku ekaysiinayaa su-aalihii laakiinse ma baxayo insha allah waan joogayaa waan idinkaga jawaabayaa hal insha allah aad iyo aad ba wasantihiin insha allahna waxaan isku dayayaa in barnaamijka saan oo kale ah 3 bilba aan dhigo halkaana aan ku dhigo si dad cusub ama dadkii xataa la dhihi karo waa u baahan yihin bahayo qabaan ee u imaadaan insha allah so igala soco ciwaankayga facebookgayga iyo tiktokgaygaba cabdiweli the CPA halkaas ayaan kusoo bandhigi doonaa insha allah aad iyo aad baad umaadsantihiin sida aad u ajiibteen seminaarkan asalaamu calaykum